igu abuurantay anigoo da yar ah duruufo iyo rafaad aan yaraanteedii kusoo koray aawadeed ayaan u jeclaystay inaan guuleysto waxaan in yar idina wadaagi doonaa laba xusuusood oo run ahaantii raad aad u weyn igaga tagay qalbigaygana ku dhex abuuray dab aad u holcaya oo maalinba maalinta ka dambeysa inuu sii bato mooyaane inuu sii yaraado aan lagaba yaabin waxaan xasuustaa horta waxaan ku dhashay Pakistan waxaan ku koray Mareykanka dabeetana waxaan xasuustaa ilmo horta sidiisaba ilmo Mareykanka ilmo qurbeyntu ku soo koray Hargeysa la keenay inuu la qabsadaaba adag ilmo nolol duruuf leh ka sii horeysa hadalkeeda badhaaf run ahaantii waxaan xasuustaa yaraanteedii inaan in badan ku soo qaatay oohin iyo anagoo dareemaya inaanan qeyrkii la mid ahayn sababtuna ay ahayd inaanan haysanin wax badan oo qeyrkay haystaan anigoo haddana dhigan ku noolaa amba ku hareereysnaa bi'ad amba environment ay dad waxaanan haysanin haysta ku nool yihiin waxaan dhigan jiray school ardayda la dhigataa badankoodu ay waalidladani dhaleen anaguna duruuf baan ku sugnayn run ahaantii xusuusaha aan ka xasuusta waxaa kamid ah waxaan tegi jiray schoolka inta badan anigoo nus saacana loo awoodin maalinta nus saacana loo awoodana waxaa la awoodi jiray inaan 500 soo qaadano sandwichka ugu yar ugu qiimaha yar schoolka waxa la siin jiray 2000 dabeetana waxaan xasuustaa schoolka marka ardayda la sii daayo ardayda inta yar orad bay ku tagi jireen meesha nus saacaha hablaha waaweynna way yaraha kan jireen waxa soo jireen carruurta yaraha ku dhax qasmina waa iyagu habla waaweyn bay isku arkeen dabeetana anigu waxaan kamid ahaan jiray ardayda ugu horeyn oradka koobaad yani ardayda ugu horeysa baritanka ugu horeeya ku jira sababtuna may ahayn si aan nus saacaha la iga dhamaynin ardayda tartamaysa waxa uu tartami jirtay si aan nus saacaha looga hor dhamaynin laakiin aniga waxay aqliga ciyaalnimo isiiyay oo nu tartamayay waxay ahayd si aan buuqa ugu dhex dhuunto maalinta 500 awoodo 500 ugu dhex qariyo nimanka nus saacaha iibinaya si aan sandwichka 2,000 u soo helo dabeetana maalinta sandwichka 2,000 soo helo ardayda waan dhex fadhiisan jiray waan nus saacayn jiray xagga ayaamaha intooda badan aan waqtigii ku qaadan jiray dhanka iyo suuliyada anigoo run ahaantii ceeb u haystay duruuftan ku sugnaa jeclaysanahayn in ardayda qeyrkii ogaadaan inaan bilaano saaca ahay iskuul sanad dugsiyeedka intiisa badanba maalin kaloo run ahaantii raad qalbigayga kaga tagtay doonitaan dhab ah igu abuurtay waxay ahayd waxaan xasuustaa maalmo xaalado adag aan ku jirnay iskuulkan ka soo rawaxay anagoo bilaano saaca ah dabeetana waxaan arkay gurigii oo inta la awoodi waayay qadaha gagsan kariyo bariis cad la kariyo bariis cad caana leh ciir leh dabeetana maalintii koobadan soo rawaxay inamaan la dhashay habluhu inta badan way ka kibir badan yihiin inamadayda way iska cuneen laakiin anigu maalintii koobadan soo rawaxay waan eegay shandadii ma iska dhigay maalintii labaad waan eegay waan iska aamusay waan iska seexdinta shandadeeda iska dhigay maalintii saddexaad baan u adkaysan waayay markaasaan ayayday oo soo korsay Ilaahay khayr badan ha siiye ku qayliyay aan si kulul la hadlay markaasaan ku yiri ayay carruurta qeyrkay nus saacay haystaan wax kasta way haystaan waa maxay maalin kasta qadadan la karinayo ee bariiska cadi carruurta qeyrkay iyagu yani wax kasta way haystaan anagana wax kala badhaafo qadaha gaagsan ugu masar waxayna guriga naga daayay bariiskan cadad maalin kasta noo karinaysan dadka waxaan arkay run ahaantii waalidku waxba ma hagrado haddii awoodayso cunto ka wanaagsan in noo karso obviously way karin lahayd awood la'aanta ayna awoodin wax hagaagsan dabka noogu shubtaana intaas xanuun iyo dhaawac ugu filnayd laakiin ma dareensaneen anigu maanta waalidahay laakiin waan dareemi karaa dabeetana waxaan arkay ayayday caw ku jiiftay hadalkan ku iri dhaawacu soo gaarsiiyay dartii la ilmaysay ilmadiina la giriirtay cawday ku jiiftay intay sii jeesatay isku dayaysa ilmadii dhabanadeeda qoyina inay iga qariso run ahaantii dhaawac aad weyn baa maalinta soo gaadhay laakiin doonitaan dhab ah ayaa qalbigayga ku abuurmay doonitaan ah dhaawacan ayayday soo gaarsiiyay inaan ka tirtiri doono ilmadii indhaheeda aniga darteed ugu qabatayna farxad aan ugu bedeli doono haddii Ilaahay isku kaayasimo dabeetana yaraanteedii waxay ugu abuurantay doonitaan dhab ah oon doonaya inaan guul ku gaadho doonitaankii waxaa ii lamaaneeyay go-aankaas run ahaantii waxaan qaatay xilliyo duruufo adagan ku jiray nolosheeda xaasnimo kadib laakiin aanan ku raagin run ahaantii waynu garanaynaa shaqo la'aantu duruufta ay dadka ku keento waxay ahayd waqti aan umlay shaqadii aan awoodi waayay inaan ku noqdo odaygaygu isagoo sanad jooga uu ku noqday Ingiriiska dabeetana labadeediba shaqo la'aan baan ugu dhacday muddo 4 bilood bay ahayd 3diiba kafaalo qaaday
inay wixii qutul daruuri ah iyo wixii daruuriyaad ah iyadoo ay kafaalo qaadan doonto oo ay bixin doonto laakiin waxaan dareemeynay iyada kalifaad ku tahay sababta iyada laftarkeeda waxa ku yimid duruufo yara adag dabeetana waxaan go'aan ugu gaadhay inaanan odaygayga kalifi doonin oonan uga sheekayn doonin baahidana ku sugannahay sodohdayna aanan kalifi doonin hadba wixii la ii gartay la ii awoodo aan bismilaysto dabeetana waxaan xasuustaa go'aankayga dartii xaalad adag baan run ahaantii galay 2 bilood bay ahayd xaaladda waxaan xasuustaa marmarka qaarkood subaxa qaar waxaan xasuustaa aan soo toosi jiray anigoo gaajo la gariiraya ilmahayga yaraana ay shaqayso exclusively yani full time ay shaqayso habeenada qaarna gaajo ku saaxday intooda badan waxaan xasuustaa maalmaha qaarkood anigoo subaxda markuu waagu bariyo mobilkayga dhax qaadaya raadinaya qof aan lacag weydiisan karo amba ciidan ka sii amaahan karo lacag si maalinta wixii loo quudan lahaa aanu u helno anigoon doonayn inaan kalifo sodohda iyo odaygayga toona waxaan xasuustaa maalmaha qaarkood markaan contact kasta oo mobilkayga ku saafgaraysna qaraacay on cid kasta caawimo weydiista qofaan isku dhaweyn iyo qofaan isku dhaweyn iyo qofaan isku dhaweynba iga dhamaadeen dadkii ciidan qaraaca aan la ahay quutal yani wixii daruuriyaadkii guriguna aan awoodi waay inaan soo dhigo because intii hore deyn baan kusoo dhigay dadkii deyntaan ka galayna aan ku noqon kari waayey run ahaantii waxay ahayd xaalad aad u adag sababtoo ah lamaan qabsanin xaalad sidaasa sanadkii ugu horeeyay guurkayga badhaadhan kusoo qaatay dabeetana xaaladaasi iga dambeysay waxaan run ahaantii u adkaysan waayey inaan dad ila mid ah hablo qaarkood ayna dumarba ahayn ay habla yihiin anigoo gabadh ah aan dib caawimo u weydiisto xaaladan ku jiray aawadeed waxaan u adkaysan waayey run ahaantii inaan kolba ku laabto dad deyn igu lahaa oo markaan intiin ka badan doontana laygu soo gacan saydhiyo waxaan u adkaysan waayey run ahaantii gaajadan ku sugnaa because waxaan xasuustaa maalmaha qaarkood waxaan samayn jiray intaan qolkayga hurdada galo ayaan qaanadaha hurdada dib u soo faqfiqi jirin sarin jiray bal maalmihii lacagta buuxday iyo meelaha taaltaalay inaad wax ku ilowday in kale ka soo ogow markaasaan haddana waayi jiray laakiin xaaladaas waxa run ahaantii aan ka faa'iiday go'aan adag waxaan arkay odaygiiyo yani warwarkii stresskii uu ka qaaday shaqo la'aanta habeenkii aan seexanahayn insomnia ay ku dhacday oo 10 jeer soo baraarugaya aniguna waxaan ka dhiidiyan u adkaysan waayey inaan bila aadam u baahanayo kolba oo dad yani qof dadna aan iska diidanahay inaan kalifo laakiin dantu igu qasbayso dadka go'aan baan gaadhay markaan xaaladda ayada ku jiray go'aankaasoo ah inaan guul gaari doono noloshan ku jiray xaaladda aan markaa ku jiray inaan dib ugu noqon doonin inaan nolol wanaagsan naftayda u samayn doono waxaa kaloo go'aan ku gaadhay inaanu odaygaygu keligay dhibtaa mari doonin because in badan waxaan arkay dumarka Soomaaliyeed waxay ma jecla ragooda inay dhibta la maraan laakiin waxaan jecelahay inay daafta la qaybsadaan waxaan go'aan ku gaadhay run ahaantii u arki waayey cadaalad inay tahay anagoo istooranay inaan da'yar isku guursano haddana inuu isagu dhibtiyo dhan isagu dhabarka u dhigto waayo waa run diinta islaamku ninkay nafaqada dumarka amba nafaqada gabadha ku waajibisay oo isagay waajibkiisa tahay inuu hooygii iyo cuntadii iyo hugiiba bixiyo laakiin nolosha waan wada qaybsanaynaa run ahaantii waxaan cadaalad u arki waayey inuu dhibtana isagu keligii maro anigoo maalmihii habeen TV iskaga maqan amba guriga iskaga dhex raaxaysanaya isaguna warwarkii uu shaqo la'aanta ka qaaday hurdaba waayey xusuus yaraan ku dhacday dabeetana waxaan go'aan ku gaadhay inaan odaygayguna xaaladaha dhibaatada aan keligii mari doonin maadaama noloshan anagu ugu talagalnay inaan wada qaybsano aniguna xaaladda inaanan dib ugu noqon doonin dabeetana go'aankaygii ficila ka dhashay ficiladii laakiin waxay noqdeen ficilo aada u qaldan ujeedadu waxay tahay intaanan ficiladeedina wadaagin in badan oo inaga mid waxaynu guul rajaynaa amba waxaynu hiigsanaa meelo guul ina gaadhsiinaya inagoon diyaar u ahayn inagoo xirfadihii meesha aynu hiigsanayna inooga baahan tahay run ahaantii haysanin ayaynu hiigsanaa inagoon qof ahaan dhisnayn oo shakhsiyadii guushuba inaga maqan tahay baynu hiigsanaa inaynu guulaysano go'aamaynu qaadanaa inaynu noloshaynu doonayno nolol ka wanaagsan heli doono inagoon
go-aankaasba aynan hubin inuu dhab inaga yahay in kale dabeetana rabbi subxaana watacaala wayna imtixaamaa waxaa layna imtixaamaa go-aankaas inuu dhab inaga yahay inaga go-an yahay yacni si kastoo ku qaadato waxaa inaynu xaqiijin doono imtixaankaa diyaargarowba inoogu biira wuxuu rabbi subxaana watacaala xikmadiisa dartii inoogu diyaariyaa meelaha aynu hiigsanayno guusha ku doonayno inaynu ku gaadhno dabeetana inteena go-aanku aanu dhab ka ahayni way isdhiibtaa meel dhexe markay marayso inteena aan diyaarka ahayna inteena go-aanku dhabta ka yahayna intay ku dhabar adeegto ay run ahaantii dhamaystirantaa yacni waxay qofka ka dhibnaana shakhsiyadiisii dhisantaa intaa uu imtixaanka ku jiro xirfado u kordhaan dabeetana ficiladii ayaa run ahaantii ficilkii koobaadaan sameeyey wuxuu ahaa inaan shaqo raadsado si waxaan kala kulmay haddana ficiladii dhib aada u badan because go-aankayga la eegayna go-aan dhab ah yahay jid aan hiigsanayay iyo darajo aanan diyaar u ahayna waa la ii diyaar garaynayay shaqaan helay shaqo run ahaantii horta markii hore waxaan ka lahaa hami aada u weyn rajo aada u weyn baan ka lahaa lacag fiican inaan ka qaadan doono tacab yar ay noqon doonto laakiin shaqadii aan helay ayaa run ahaantii igu adkaatay shaqo waxay noqotay run ahaantii dhib badan igala kulantay laakiin shaqada intaan ku jiray ayaa caashiq waalan igu dhacay jacayl aada u daran baa igu dhacay waxaan caashaqay caawinta bini-aadamka meeshaan ka shaqeynaya waxay ahayd meel aada u dayac badan dabeetana waxaan arkay waxaan u dul qaadan waayey ardaydan wuxuu dhigayay dhibtii iyo cabashooyinkii badnaa ay qaadeen dabeetana waxaan nafteeda go-aan kale ugu qaatay inaan caawin doono ardayda waxay igu qaadataba odaygayga shaqo u helay dabeetana waxay igu gaadhay ilaa iyo xadka maalmaha qaarkood 2 bilood isku xigta lacagtii aniga iga soo galaysay shaqada iyo lacagtii odaygayga ii soo dirayay biilkaygiiba aan maalmaha qaarkood $1 gurigayga kusoo hadhin oon ku invest gareeyo si aan dadka ugu caawin lahaa dabeetana waan ku khasaaray run ahaantii dhaawac badan way iga soo gaadhay khasaare aad u badan ficilkii labaad baan noqday inaan anigu wax ii gooniyo samaysto dabeetana waxaan isku dayay school online inaan furto website baan samaystay waan ku guul daraystay run ahaantii because qaladaad weyn aan sameeyay baa waxa ahaa waxaan ku invest gareeyay lacag $1,000 gaadhaysa oo dayn ahayd dabeetana wixii markii intii horeba aan doono inaan run ahaantii guusha anigu doonitaan aan u doonayay ku gaadho waan ku qasbanaa xaaladan galay qaladan sameeyay inaan iska saaro waxaan galay run ahaantii xaalad aan aada u niyad jabay because qaladkan galay qalad kalan kasii dambeysay qalad kaloo igu riday business baa la ii dhiibtay laygu aaminay 2364 shay inaan iibiyo run ahaantii businesska wuxuu igu soo hagaagay goor aan niyad jabsanaa on broke ahaa zero ahaa niyad qalbiga ay jabnaa run ahaantii because khasaare aad u weyn baan kasoo kaabanayay anigoo rajaynay businesskaasina inuu khasaarahan galay iga kaabi doono laakiin khasaare kale iga soo raacay oo dayn kale igu korodhay waxaa igu lumay niyad jabkii iyo dhibtii aan ku jiray aawadeed 618 shay baa igu lumay dabeetana bartii waxaa iga raacay $1,500 oo kale dabeetana waxaan isku dayay xaflad inaan abaabulo aan rajaynayo inay dayntii dib iga celin doonto xafladda in badan idin ka mid waxaa laga yaabaa inaad aragteen iclaan amba promotional video aan u sameeyey Hargeysa Ciid event aan u bixiyay waan ku guul daraystay waxaa iga raacay $1,300 oo kale oo dayn ah dabeetana talaabo kale aan la yimiday run ahaantii waxaan isku dayay waxyaalo badan inaan sameeyo so dariiqii guushu markii hore doonitaan baa igu abuurmay dabeetana go-aan baa iga dambeeyay dabeetana ficilo badan oo qaldan baa iga dambeeyay laakiin ficiladii wax baan ka faa'iiday run ahaantii iyo xaaladahan galay waxay ii diyaar gareeyeen dariiqii dhabta hay sugayay darajadii iyo meeshan hiigsanayay aanan islahayn yacni gooro ama sanado dhow baad gaari doontaa amba muddo dhow baad ku gaari doontaa bay run ahaantii xaaladahan maray ii diyaar gareeyeen qof ahaan ayay i dhiseen intii hore waxay doonitaan iga ahaataba inaan guulaysto waxaan galay xaalad ah yacni midig aanan u kici karahayn sababta xal baan kasoo quustay bidix aanan u kici karin sababta xal baan kasoo quustay dib uma noqon karahayn sababta waan ku jira xaaladii horena uma socon karahayn sababta waan niyad jabsanaa yacni xal kasta oon haystay waan ka quustay I was broken run ahaantii aad baan niyad jabsanaa waxay noqotay dabeetana inaan xalkeeda galo sidaan nafteydii u badbaadin lahaa sida aan caafimaadkayga u badbaadin lahaa because 10 khasaaro ayaan 3 bilood gudahood la kulmay yacni khasaarooyinkii dhaawacyadii iyo dhibaatooyinkay soo gaadhsiin waxay ahayd in laygu yeesho dayn $10,173 ah
si aan u bixina aan garanayn because xal kasto isku dayay inaan tii hore ku hagaajiya dib kale igu soo biirinay dabeetana waxaan galay xaalad aan ku qasbanaa inaan noloshada wax dhab ah ka bedelo isbedel dhab ah la yimaado waxaan galay xaalad ah inaan isweydiiyo maxaan qalday oo dabeetana noloshada inta noolaa oo dhan intaan dib u xisaabtamo oo qalad yar oo kastoon sameeyay dib u saxo si aan xaaladan ku jiro uga baxo si aan naftaydu badbaadiyo caafimaadkaygu badbaadiyo guurkaygu badbaadiyo sumcadda bulshada ku lahaa u badbaadiyo laakiin waa dariiqaas aan isku soo kaabiyay dariiqa guushii ii diyaariyay anigoo run ahaantii ogeyn waxaan bilaabay inaan qaladaadkayga saxo waxaan bilaabay inaan xirfado aanan haysanin soo korarsado waxaan bilaabay inaan qorsheeyo waxaan bilaabay inaan hadaf samaysto noloshayda in badan kamid ah bilaa hadaf baan ku noolaa hawlo badan baa ii hirgalay alxamdulillah 20 jir baan ahay run ahaantii 20 jirada ila da'da ah ee waddankaygula nool waxyaalo badan oo u hirgelin baa ii hirgalay bilaa hadaf bayna iigu hirgaleen because nolosha intaan noola hadaf maan samaysanin 16 jir baan ku biiray bahda saxaafadda oon ku noqday wariye raadiyo Hargeysa aan u shaqeynayay qaybta luqadda Englishka 17 jir xaas baan ku noqday 18 jir macallimad baan ku noqday 19 jir hooyaan ku noqday hawlo maamul baan qabtay 20 jir qanacsataan noqday school gaara baan samaystay entrepreneur baan noqday bulshada waxqabadyadeeda xoog baan uga qayb qaataa run ahaantii waxaan ahay qof ka soocan oo ka suntan dadka la midka ah laakiin bal u fiirso waxaas oo dhan waxqabadyadaas oo dhan waxay ii suurto galeen anigoon hadaf lahayn waxaan bilaabay inaan nolosha hadaf ka samaysto waxaan ku qasbanaa yani obviously xaaladan galina wax ka bedelo dabeetana ahdaaftan samaystay waxay gaadheen ilaa iyo xadka ah inaan qolalkii gurigayga waraaqo waaweyn ku wada qoro on hadaf kasta isweydiiyo maxaad u doonaysaa inaad hadafka ku gaadhid on asbaabta ku qoro bartan on gidaar kasta ku dhajiyo 3 waraaqood amba 4 waraaqood amba 5 waraaqood ku dhajiyo kelmado dhiirigelin ah naftaydii yani dib u tababaro ahdaaftii baan isku diyaariyay waan qorsheeyay run ahaantii waxaan xirfado badan oo iga dhibnaa ayaan kororsaday seminaaraan qaatay naftaydan koriyay shakhsiyadaydan dhisay awoodahaygii baan dib u baadhay waxaan isku dayay dariiqa saxda ah inaan helo markaan intii oo dhan isku soo koobsaday hadaf samaystay hadaf aad u qeyr macquul ah marka loo eegay xaaladan ku noolaa hadaf waxaan ka dhigtay inaan tababaro nololeed noqdo bisha October in badanna waan doonayay laakiin ficilkii baa iga maqnaa run ahaantii iyo kartidii yani caajis bay ku jiray because waxaan ahaa qof hami leh laakiin aan hadaf lahayn hadaf waxaan ka dhigtay inaan tababaro nololeed noqdo bisha October anigoon weligay tababar nololeed bixin inaan bisha October tababarkii igu horeeyay bixiyo bisha October gudaheedna ugu yaraan 3500 qof tababar siiyo so xaaladan ku jiray marka loo eego qeyr macquul bay ahayd dabeetana hadafkii baan qorsheeyay hadafkii baan istiraatiijiyad iyo xaalad ula yimiday hadafkii baan asbaabtii ugu kaliftay inaan sameeyo gurigayga gidaar kasta ku dhajiyay markaan hawshaas oo dhan isla baagsaday aan hadafkii diyaariyay aan qorsheeyay aan wax kasta sameeyay ayaan run ahaantii dareemay waxay kale dareen ah inaanan diyaar ahayn waxaan ogaaday inaanan hadaf xaqiijin karahayn oo qorshihii xataa haddaan saxay xataa haddaan gidaaradii ku dhajiyay xataa haddaan naftaydii dhiirigelin badan siiyay xirfadihii la yimiday anigu istisay inay weli wax iga maqnaayeen waxaasna wuxuu ahaa run ahaantii maskaxdayda diyaar uma ahayn inay hadafka xaqiijiso sababta maskaxdayda waxay kasoo kaabatay khasaarooyin aad u badan khasaarooyinkaasi waxay bilaabeen inay aaminsiiyaan inaan ahay qof khasaaro u samaysan waayo 3 bilood gudahood ayaa tallaabo kastoon isku day inaan qaadaba aan ku fashilmay 3 bilood gudahood baan 10 failure igula soo darsan dabeetana waxaan aaminay inaan laguba talagelin inaan anigu guuleysto waxaan aaminay inaanan hadafba xaqiijin karahayn waxaan aaminay baqasha ay gashay run ahaantii dabeetana waxay iga dhibnaa wuxuu noqday inaan maskaxdayda u diyaariyo oon u tababaro sidaan ahdaafdayda u xaqiijin lahaa because run ahaantii wax kasta oo consciously aan u diyaarin lahaa amba si waaci ah aan u diyaarin lahaa waan dhamaystiray laakiin waxaa iga dhibnaa intii ugu badnayde laa waacigii amba subconsciously inaan isku diyaariyo waxay igu qaadatay inaan maskaxda bini aadamka wax ka ogaado iyo qaabkii u dhaqmayso
waxaan bartay daraa'iq badan amba processyo badan oon dib maskaxdayda ugu tababaray aniga oo maskaxdaydii ka tirtiraya aaminaadii aamintay inaan ahay khasaare dabeetana qof cusub baa soo baxay maryan cusub baa soo baxday anoon weligay hadaf samaysanin ban hadafkii ugu horeeyan sameeyo ii xaqiijismay welibana anigoon hal khasaarana kala kulmin anigoon weligay tababar nololeed bixin baa tababarkii koobadan bixiyey 120 qofan u bixiyey successna u noqday dabeetana istiraatiijiyadii iyo xaaladii baa hab ii noqotay usbuucan imika dhamaaday waxaan tababarsiiyey 135 qof marka loo geeyo 125 qof ee hore run ahaantii ujeedadu waxa weeyaan sababta aan idinla wadaagayo waxaasoo dhan waxay tahay dariiqa aan guusha ugu mariyay iyo socdaalkaas wax badan baa iiga faa'iiday markaan ka hadlo caashiqii darnaa een u qaada inaan bini aadamka caawiyo aan run ahaantii fiiriyey xaaladaha iyo dhibaatooyinka bulshadana ka taagan waxaan go-aan ku gaadhay inaanan guusha iyo dariiqa aniga ii saxmay keligay mari doonin run ahaantii markaan xasuusto 2 bilood xaaladii aan u adkeysan waayey ee ahayd run ahaantii inaan dayn galo inaan dadka ila midka ah wax weydiisto inaan gaajoodo inaan gurigayga marka qaarkood dib u baadho firaashyada oon ka eego lacag waxaa aada ii damaqda inaan ogaado inay hooyooyin badan 8 caruura sida ku dhalayaan qaarkood 12 sano xaaladda ku jiraan iyagoo run ahaantii aada ay u dhibayso laakiin aad moodid haddana inay raali kaga noqdaan xaaladda ku jiraan caqiidooyin amba beliefs ay bulshadeena ku noolnahay aaminsiisay darteed bulshadeena waxay dumarka aaminsiisaa gabadhu hadday nin leedahay amba hadday xaas tahay inaanay shaqo tegin gabadha shaqo tagta iyadoo ninkeedu shaqaynayana ay ceeb usoo jeediso ninkeeda amba ay tahay qof iimaan la anaanaan run ahaantii taa la kulmay waxaan garanayaa dad badan oo inta ii imaadan igu dhaahda iimaan la-ida xagee lagaa tusay iyo kayaabka guri hantiyaad ku jirtaa intaasoo $100 baad bishii qaadataa ilmo quraataad haysataa mad gurigaaga iska fadhidid aayar waxaan garanayaa meelo badan oo tago dad igu dhaahda odaygaaga miyaanu kuu shaqayn miyaanu kuugu filnayn waxaan garanayaa dad badan oo rumors amba wax iga sheego yidhaahda odaygeeda uma shaqeeyo dabeetana saasay u shaqaysataa so waad arki kartaan fikradaha qaldan ee bulshadana dumarka aaminsiinayso ugama jeedo dumarku inay soo banbaxaan guryahooda kasoo baxaan ay wada shaqo tagaan run ahaantii kani waa dariiqadayda hooyooyin badan oo kalena dariiqadooda iyo xaasas badan oo kale way tahay inay shaqo tegi karaan oy aqoontooda iyo xirfadahooda dadka uga faa'iideyn karaan laakiin hooyooyin badan oo dhibaataysan baa iyagoon ku qasban inay guryahooda ka baxaan haddana naftooda wax u tari kara wax qabsan kara hadday wax qabsan lahaayeenbana ay diidayaan ceebta ay usoo jiidi lahaayeen raggooda amba ay diidayaan hadalka bulshada yacni ay ku keenayso hooyooyin badan baa hadday wax qabsan lahaayeen aan garanahayn dhinacay ka bilaabaan iyagoo run ahaantii rajo ka quustay amba raali kaga noqday xaaladahay ku sugan yihiin hooyooyin badan waxaan garanayaa aaminsan ilmahaygan marka hore korinaya aan waqtigayga u huraya dabeetana ilmahayga markaan koriyo isaga biritoole waxay kusoo celin doona markuu heer gaadho laakiin yaa u ballan qaaday hooyadaas inuu ilmaheedu heer gaadhi doono yaa u ballan qaaday inuu horumar heli doono iyo mustaqbal tayo leh maadaamaanay nafteediiba horumar u ogolaanaysa carruurteeda inay mustaqbal tayo la siiso gaadhsiinin oonay u ogolaanin waxyaalaha run ahaantii aadkay dhaba waxa weeyaan inaan xasuusto in arday badan oo xaaladan ku jira iyo xaalado ka liita ku jira arday badan oo duruuf waalidkood ku sugan yihiin dartood la dhuumanaysa ardayda kale iska takoortay nafahoodii u eedeeyey moodaya inay ceeb tahay oo xaggay ardayda ka faraxsan yihiin waqtiga ardayda wax cunayaan suuliyada ku qaadanaya iyagoo macalimiinta iskuulkooda ka dhigayaana aanay war ka haynin waxa run ahaantii aaday dhibta inay dadkeena u kala qaybsameen qaar xaaladahay ku sugan yihiin raali kaga noqday duruufahay ku sugan yihiin oo la go-aankii ay kaga bixi lahaayeen ee nolol wanaagsan ku raadsan lahaayeen iyo qaar markay horumarkii ay gaadheen raali kaga noqday oo yani keena PhD soo qaateenba masters degree haysta markuu shaqo fiican helay uu reerkiisii kafeeyey intaa ku istaago
xagu naftiisa kasii korin lahaa amba bulshadii dib wax ugu tari lahaa waxa run ahaantii aad ii damaqda markaan arko qof dariiq saxan helay uu guusha ku gaadhay laakiin dariiqii keligii koobsaday oon dad kale la wadaagahayn waxa run ahaantii aad ii dhibtaa inaan arko dad noloshan ku nool oo haddaan anigu maanta awood inaan Hargeysa gaari ku dhex maro man ilaabin noloshii aan soo maray ayaamo badan baan dooxa Hargeysa lug ku mari jiray man ilaabin gurigan kusoo barbaaray xusuustuu lahaa iyo noocu ka haddaan maanta guri hagaagsan helay iyo nolol wanaagsan dabeetana waxaan go-aan ku gaadhay inaan yacni horumar kastoo nafteeda gaadhsiiyo inaanan keligii koobsanin dabeetana waxaa maskaxdayda kusoo dhacday ila gaadh gool run ahaantii in badan dadka guusha dadka ugu yeedhaa waa dad guul gaadhay oo marka iyagu nafahoodii ka khaas yeeleen amba ka haqab yeeleen guushii dabeetana dadka kale ugu baaqiyo leh jidkan baan maray iga soo daba maray waa kan dariiqaygiiya anigu waxaan aaminsanahay inaan dariiqii saxda ahaa iminkun ku dhacay oon dariiqii guusha helay laakiin intaan jidkaa keligii mari lahaa oon dhamaysan lahaa waxaan ka doorbiday inaan imika cid kasta oon gacanta sii qabsan karo intaan ku dhahdo ina keen jidka aanu wada marno hooyo kastoon fikir kastoo qaldan aaminsan amba bulshada ku qasabtay inay aaminto qalbigeeda ka tirtiri karo si ay nafteeda nolol wanaagsan ugu raadsan karto maanta run ahaantii bulshada wax badan kuma soo kordhin karo oo dadka duruufaysan maal uguma deeqi karo laakiin waxaan ugu deeqi karaa waxa weeyaan dhiirigelin waxaan ugu deeqi karaa waxa weeyaan waxaan uga faa'iideyn karaa hibo uu Rabbi subxaanahu wa tacaala igu abuuray aftahanimo iyo hadalkarnimo anigoo u adeegsanaya inaan dadka quluubtoodu rajada ku yaraatay dhibta iyo duruufta marayaan iyo qasaarooyinka la kulmaan aawadood inaan anigu rajada dib ugu kordhiyo inaan intooda aamintay inaan guusha iyaga loogu talagelin tuso dariiqa guusha ku gaari karaan waxaan go-aanka u qaatay waxa weeyaan waxaan run ahaantii aada u jeclaystay markaan arko qof faraxsan oo dhoola cadeynaya because qof dhib soo maray ayuunbaa qiimaha dhoola cadeynta dareemi kara qof dhaawac soo gaadhin baa run ahaantii qiimaha farxadda dareemi kara iyo qof murugeysan so waxaa aada ila qurux badnaantay run ahaantii inaan arko qof dhoola cadeynaya aniga dartiiba dhoola cadeynaya amba u faraxsan amba qof qalbigiisa rajada ku yaraatay dhibta iyo rafaadku marayay iyo khasaarooyin lasoo kulmay aawadeed dabeetana aan anigu awood u yeesho inaan rajo dib ugu abuuro qalbigiisa run ahaantii waxaan jeclaystay natiijada amba saameynta uu qofka bini'aadamka ku yeelan karo qof kale markuu jeclaysto inuu dhib ka kala khafiifiyo dabeetana waxaan go-aan ku gaadhay noloshada dhan inaan u horo ciddii fikrad qaldan aan qalbigeeda maskaxdiisa ka saari karo inaan ka saaro si uu horumaru gaadhi karo jidkaa aniga io iftiimi inaan dad badan la wadaago ciddii aan dhiirigelin siin karo rajo siin karo inaan siiyo hooyooyinka tabaalaysan inaan ugu gargaaro anigoo kalsooni ku abuuraya anigoo ku baraarujinaya inay nolosha nolol dhaanta u qalmaan waxaan run ahaantii u adkeysan la'ahay waxa weeyaan markaan ogaado macalimiin badan inaanan war ka haynin ardayda xaaladeeda iyo kale amba arday xaalad ka daran ku sugan oo nusu saacaha suuliyada ku qaadanaya duruuftay ku sugan yihiin ceeb moodan aawadeed isagoo macalinkii karaya inuu nusu saaco u iibiyo laakiin aan run ahaantii ka warhaynin waxaa run ahaantii aada ii dhibta markaan arko dad xaaladan ku jira iyo xaalad kasii hooseysaba ku jira dabeetana waxaa igu dhalatay inaan aasaaso ila gaadh guusha waxaan ugu iftiiminayaa dhalinyarta dariiqooyin ay hadaf ku yeelan lahaayeen nolosha hadaf sax ah u dejisan lahaayeen waxaan ku iftiiminayaa maadaaman anigu qof ahaan dhismay aaminsanahay maanta in dariiqii guushu ii hirgalay sababtoo ah aan in yar barta idinku celiya anigoon weligay tababaro nololeed noqon anigoon weligay tababar nololeed bixin baa yacni diyaargarowgii xaaladahan ku sugnaa ay diyaargaraysiiyeen darteed waxa diyaargarowgayga gaadhay ilaa iyo xadka aan maskaxdeeda ku tababaray inay guul ku sugan tahay waxaan sameeyaa meditation waxaan sameeyaa creative visualization intiina garanaysaa subconscious mindkaygan train gareeyay dabeetana
أنا أول جيت ببرنا لولاد بحنين بان مالنتي كواد بقولي شن يلا بعتهم قفوا قبتي وانكو قوليستي تبتنا أسبوعي كحكتي بقولي دوري صدق قف بان وقبتي وانكو قوليستي أسبوع عنو حقيقة شيء سن لو بقولي عفرتن قفنا نقبته هذا كان دتيستين وحوها إن أنت تبر وقبته صدق كون إيش بقول قف وغيران so see شدك كلية تمن هلينا وانكو قوليست الحمد لله وقمان ترجلن لكننا كلي جرون هانتي شد كاميرا إلى قد قوش وحنا قندنا إن شاء الله طريق عندنا يربضن كوعي قلنا دونا كبراروتشين دونا because لنا هانتي وحنا كنا لها أدون ضيع بدن كسوغان وحنا كنا لها أدون أنت فرح سنة أيرتها أنت مرجع سنة أي كبدن تهاي وحنا كنا لها أدون هايو إنك قاري أي نعمك وشيران oo door dariyo kala duwan carruurtooda ay u karinayaan ilmo buuxu doonay u karinayaan halka hooyo kale ay la ilmeynayso xanuunka ah dartii inay u weeday inay ilmaheeda dhibicana afka u saarto waxayna ku noolnahay adduun carruurta yar yar ee rafaadka iyo duruufta waalidkood ku sugan yihiin ay la gabanayaan oo habeen iyo maalin la ooyayaan waan ka khashaafi jiray gurigayga inaan keeno ardaydan iskuul nahay because waxaan u haystay duruufta inay ceeb tahay caruur badan oo kale ila midaba jira u baahan in jidka loo iftiimiyo u baahan in lagu ababiyo inay guuleystaan inay u qalmaan nolosha ku jira nolol ka wanaagsan iyadoo la dareensiinayo inaanay duruufta ceeb ahayn waxaan ku noolnahay adduun كان رفاضك كوسوغاني لموضوع ام باي u badan tahay inuu noloshiisa raali kaga noqday isagoo hadana rafaad ka dhibayo laakiin la dariiqo uu kaga baxo go'aankii ka guuray dadkii way bulshadana maanta xaaladda ku sugantay kumay sugnaateen hadaynan rafaadka iyo xaaladahan ku jirno raali kaga noqonin in badanna waxa sababi karta asbaab kala duwan ba sabab u noqon karta aqoonayeen qaldan oo la aaminsan yahay negativity-ga amba salbiga ay bulshadu kala kulmayso ama dadkan doonay isbeddelka ay kala kulmayaan bulshada kale waxayna ku noolnahay run ahaantii adduun dayactir badan u baahan ummad gargaar badan u baahan dhalinyar hagis badan u baahan so ila gaad guushu waxa loo aasaasay inuu intaasoo meeloodba wax ka qabto hadii Ilaahay yiraahdo waxaan idin kula wadaagayaa xirfad kasta oo ku bartay anigu dariiqaygii xirfad kasta oo ii sahashay aniga weligii tababar nololeed qabanin inaan kalsooni u yeesho hadafka ah inaan markii tababarkii koobaad aan qabanayo qabto ugu yaraan 3500 qof waxaan idin kula wadaagi doonaa xirfadaha run ahaantii iga kaabay amba iga bogsiyay qasaarooyinkii badnaa ee la soo darsay qasaarooyinkii 10,000 iyo $173 ee deynta ah galiyay maantana alxamdulillah aan ka deyn la ahay waxaan idin la wadaagi doonaa run ahaantii dariiqyo badan oo bulshadeena wax badan ka bedeli doonta hadii rabbiga caalamiinka ah idmo waxaan laakiin doonayaa qof kasto idin la mid inuu guul gaaro waxaan doonayaa qof kasto idin kamid ah inuu xaaladdu ku nool yahay